qabrigan saddex maxruum baa ku jira ilaahay jannada firdawsaha ka waraabiyo waa saddex gabdhood qabriyadii kalena waa arki doonaa ma garanaysaa in la xaqiijiyo oo dadkii masuuliyadda ku habsatay xalay abaare halkii saac iyo 40 ay duqeeyeen kuwa duqeymaha ka geysta dalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan Puntland xalay masuubadaas baa dhacday saddexdaas waa dumar mid baa dumar ahaan ka maqan iyo 4 nin oo kale afarta kalena waa arki doonaa iyo gabadha maqan maxruumada maqan adoo ka qaaday أفرت وين أقول جينا؟ هاو سؤال أميديني. هناك هو روسي هذا. كان أي افتح تمود حيسين هو. ما ده حيسين هذا. اللي حمود حيسين. أفر. سؤال هنا بدأ. على كان عنقي ويرابا كجرا وكذا مريض حاسكي جابا سوق حيسين. عنقي ويرا هذا كان سؤال ما فيه كان عنقي يرا يوم مرحمتي قبل قالوا كسور اللي بعد كان وين في تدو كان هذا حقا نونها كان واحد الشيء محرومتي ku jirtay qabrigaas oo xaaskayga ah kan waa wiil oo isna walaalo weeye iyada hooyo maamadaas dhasharka ku jirta kana adeerkiisaan ahay oo ninka odayga walaalkay baa dhalay kana laftirkiisa adeerkay baan ahay oo nin walaalkay oo kale Saciid Cali la dhalay sida waxa ku dhiman saddex halkaas iyo afar lakana hal gabar oo qabri gooniya Cabdirasaaq waxa weeye marxuubiyada tan meesha lagu aasay Allah u naxariisto naxariista janna Allah ka waraabiyo waxa weeye meesha tan dadkii waxa weeye ehelkoodii qaraabadoodii kulli waa joogaaneen waxna waa u maqan yihiin Allah anaga naga sabarsiyo naxariista janna ayaga ka waraabiyo waxaan ku weydiinay dadkan marxuumiinta ay meesha ku jira hadda dadku waxa weeye bas wuxuu garanayaa magacyadoodii waxa weeye waxaanu kaaga baahnaa istaaga xaq oo sheegay gabadha kan hadda u dhashay waa biliyo hada habeen ku jira muxtaar baa la yiraahdaa islaantu hadda shalay baan bakeenay xalana waa gariyoodeen isagii hooyadiis kan ku xiga walaalkiis oo orodkaygi maxamed baa la yiraahdaa kan ku xiga adeerkiisana ayo Shaafici baa la yiraahdaa maxamed Shaafici maxaa kan ku xiga Umar maxaa Cali baa la yiraahdaa Umar Saciid Cali baa la yiraahdaa waa afar marxuum afar wiil weey afartii saddex dumar halkan ay ku rinday oo la kala yiraahdo Saytuun Sahal iyo Saara Cali oo Saytuun xaaskiisa Saytuun Sahal iyo Saara Cali oo iyo Maryama Warsame iyo Iqra Abdullaahi Cali oo inta baan abtiyo adeer oo ahay iyo walaashay iyo islaantay afartaas ka koobay qabriga aad u jeedaana waxa ku jira gabadha maqan oo iyana aan abtigeeda halkan waxa ku jiray islaantayda iyo walaashay iyo gabar adeer oo ahay halkaasna waxa lagu ridayaa gabaran abti oo ahay 8 qoftaas ku dhameystiraan maxaa khasaare soo gaaray dadka dhaawaca waxa la sheegay hadda waxa weeye laba qof saddex qof saddexda qofna waxa weeye waa kuwa meesha yaal iyaga dhunkooda waxay u baahan yihiin qaaditaan iyo waxa weeye meel dawan in loola cararo meel miyeena dadka waxa weeye musubada xalay ku heshay maxaa marka waxa weeye qawaacid ka weyn oo saddexda dhaawaca weheliya والله إني ودي قواعد كوين حالي أف سديت روح وهالمر نفواي واحد كوين دريم ماي لكن واحد كسوداء إله سبحانه وتعالى صبر باللوبة هاي إلهي وكم هاتسنة تنودع ذي لكن واحد هاي مد نوكو ترجلي سديت ده مرحوم واحد وهلية أفر قف ونكي نوجوين هذا ماشي دجنا الروت عن قارك ودلي ولالك يداوع سوق جاري وهذا فضل سوق ما مدينة ده شيء أنا يسقى أو ينداوع سوق جاري xaaskiisii oo Maryam Xaashabeele oo iyana soo gaaray dhaawac gabar u dhalay oo iyana dhaawacyo soo gaareen adigu saddex ilmi iyo labadaas baa ka bil qabnaa oo loo isaga dhaawac ku yahay waa garanay waxa weeye dadkaas oo ku dhan waa mujtamacii yimi meesha waxa weeye marxuumiyadaas ku geeriyoodeen naxariistii janna Allah ka waraabiyo ninka aan wareysanaynay oo meesha goobjoog ka ah waa Cabdirasaaq Cali Warshe anaga uga nimi dhinaca gabagabay waxa weeye xal khayr roorkooda noogu yimi iyo telefoonkooda
anigoo waxa weeye meesha jooga qabrigii waxa weeye magacayguna yahay cabdishakuur cabdilaahi saciid jaamac dhammaan waxaan leeyahay in aragta iyo inaan arkin naxariistii janno iyo anagoo kulmisan naxariis janno in ilaahay ka waraabiyo maca salaamatillah jaamac waxa weeye dadkan masaakiinta iyo shacabka aan lahayn wax iyagu dembi ah wax dembi ah way ahayn dadka